Bismillaah, tobankan arrimood ee soo socota waxa ay dhammaan ku salaysan yihiin waayo aragnimo shakhsi ah iyo wax aan anigu dareensanahay ee ma aha wax biyaba kama dhibcaan ah ama qof walba uu dareemi karo ama qof walba uu sidaasoo kale aaminsan yahay. Tobanka sifo ee aan ku jeclahay dadka Soomaalida guud ahaan mujtamac ahaan ayaa ah: kow, muslimnimada. Muslimnimadu waa nimcada ugu weyn ee aan haysanno laakiin aanan ogeyn, waxaana uun keli ah oo dareemi kara qofka dadkiisii ama ahalkiisii ama qaar ka mida qaraabadiisa ama walaalihiis ama waalidkiisba ay yihiin gaalo. Ma dareemi karo qof ay ku hareeraysan yihiin ama la macaamila 24 saac dad boqolkiiba boqol muslimiin ah, ee waxa uun keliya oo dareemi kara qofkii la macaamila gaalo. Marka aad la macaamisho gaalo badan ayaad dareemaysaa wanaagga ay leedahay in aad la macaamisho dad muslimiin ah oo ay kugu hareeraysan yihiin. Haddii kale waa in aad si joogto ah uga fikirtaa wax kasta, tillaabo kasta oo aad qaaddo ama qof kula xiriira uu qaado. Tusaale ahaan, ma isweydiinaysid marka aad soo gasho maqaayad Soomaali leedahay cuntada taalla talow ma xalaal baa mase waa xaaraan? Kama fikiraysid. Ama qof hebel talow ma muslim baa mase waa gaal? Marka aad Soomaali ku dhex jirto, waxyaabaha noocaasi waa waxa ugu dambeeya ee aad ka fikiraysid ama aad ka fikirid. Labo, deeqsinimada. Aniga kolley inta aan ka arkay ma arkin mujtamac ka deeqsisan Soomaalida dhinac walba oo aad ka eegto. Waxaan ku sii karaa boqolaal tusaale oo ku saabsan deeqsinimada Soomaalida, laakiin waa wax qof kasta oo Soomaali ah uu fahmi karo. Haddiina la dhihi lahay dunida deeqsinimaha lagu tartamo, waxaan qiyaasayaa Soomaalidu inay kaalimaha ugu horreeya geli doonaan haddaysa ayaguba ugu horrayn. Saddex, qaraaba xiriiriska. Mujtamacaadka kale waxaad ku arkaysaa dad macnaha aysan u tirsanayn xataa adeerayaashiis ama adeeryaalkood, abtiyaashood, habaryar, eedo iyo wixii la mid ah, iska baddaa ilma adeer iyo wixii ka sii korreeya. Laakiin Soomaalidu inta badan waa dad qaraabada aad u xiriiriya. Iska daa ilma adeer ilma adeer koowaad, labaad, saddexaad ilaa ay jilib iyo laf ilaa beel qabiil ayay isku xiriiriyaan Soomaalidu. Afar, qabka iyo isla sarraynta. Inkasta oo mararka qaar ay keento dhibaato kale, laakiin qabka Soomaalidu waa dad aad u qab weyn. Waa dad aan loola imaan karin waxyaabaha qaar ee jamcaad badan loola yimaado oo ay u dulqaataan amaba ay ku qanacsan yihiin. Soomaalidu waxyaabaha qaar ma aqbasho. Shan, quraan jacaylka. Soomaalidu sida ay u jecel yihiin quraanka iyo barashadiisa ayna isu baraan ama ilmahooda ugu tarbiyeeyaan inay kow quraanka bartaan ma aha wax laga helo xataa mujtamacaad badan oo muslimiin ah. Waxaana qiyaasayaa inay Soomaalidu ugu horrayso jamcaadka muslimka ah ee quraanka aad u barta, haddii aysanba ahayn dadka ugu quraan barashada badan. Quraanka ma ku dhaqmaan ama markay bartaan kadib ma sii hayaan waa masale gooni ah, laakiin barashada quraanka marka hore Soomaalidu aad ayay ugu horraysaa. Lix, xoola jacaylka. Xoolaha oo la hubo in ay ka mid yihiin ilaha dhaqaale ee adduunka aad loogu tiirsan yahay, lana qiyaasayo in sannadaha soo socda aad ay qiimahooda u soo kordhi doonaan. Soomaalidu waxa ay ka mid yihiin dadyawga adduunka ee xoolaha aad u jecel dhaqaalaystana. Toddobo, dhiiranaanta. Qodobkan waxa ay iska ag dhow yihiin qodobkii qabka Soomaalida, laakiin waxaan ula jeedaa Soomaalidu waa dad ku dhiirada waxyaabo badan oo dadyawga kale aysan ku dhiiran, waana dad tijaabiya waxyaabo badan kana guulkeena. Sidaas darteed ayaad arkaysaa in dadka nala midka ee Afrikaanka ah in badan aan waxyaabo badan uga horrayno. Sideed, nadaafadda jirka. Soomaalida waxa aan ku jeclahay waa dad aad u nadaafad badan markii ay noqoto jirkooda iyo waxyaabaha la midka ah. Umana badna in qof Soomaali ah aad dhibsato nadaafad darro darteed, laakiin marka ay timaado nadaafadda dhanka kale ee dhulka, jidadka ama guryaha iyo waxyaabaha la mid ah, Soomaalida waa looga horreeyaa. Sagaal, isu gurmashada. Soomaalidu inay isjecel yihiin iyo in kale waxaad ogaanaysaa marka ay isu gurmanayaan. 10 oo ah qodobka aan ugu sii jeclahay Soomaalida waa hiilada ama danaanada. Lagama yaabo in qof Soomaali ah agtiisa inta lagugu dulmiyo oo kaa aamuso ama shib kaa yiraahdo. Marka uu ugu yar yahay, haddii uusan kaa celin qofkaas ama uusan idinkala celin, wuxuu afka ka dhahayaa war iska celi. Umana badna duruuf kasta oo timaada qof Soomaali ah inuu kugu fiirsado ayadoo lagu dhibaataynayo. Qofkaasu qabiilkuu rabaa ka soo jeedo, isku qabiil ahaada yaana isku qabiil ahaanin, isjeclaada, isnacbaada. Kolley aniga intaan ka arkay intaasoo marna igu dhacday qofka Soomaaligu in uu kuu hiiliyo ayaa jirta markii aad u baahan tahay.